aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horumariyo aqoon-yahan maaha. maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooyaa haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnee qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo 10 oday intay ku yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqagelin karto ama culture-ka bulshadu ay leedahay ee xun culture-ka san waa inuu ku baqageliyo waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliyo maaha laakiin culture-ka liita uu ku baqagelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankan rabnee wax beddelayay maaha sida uga dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira aqoon-yahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka Soomaali ahaan ka umma Soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaariji ah bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay dhib daakhiliyaynu leenahay oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasadeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa axsaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna sooma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon yaa aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kale sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned people kan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kale sheego min reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa inay cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaaba ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahannahay markaa taxadiyaadka khaarijiga ah ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno challengeska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray oo xoog ku qabsan jiray imika iyo dubuun waa sida quraanjada hadda u socdaan quraanjadu maxay way tamar yartay laakiin xagee ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysaa haddaan iska gufaynin bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo oo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada Soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay
diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kastoo ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen